السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada casharkii saddexaad ee moduulka lixaad koorsada vocabulary-ga haddii aan la idmo casharkan waxaan uga hadli doonaa waxyaabaha loo yaqaano collegeska iyo si guud idiomatic expressionska ardayga waxaa laga doonayaa casharkan markuu dhammaado recognize colleges and overused expressions collegeska iyo waxa weeye jumladaha aadka loo isticmaalay inuu barto macnaha intii la rabay in ka badan la isticmaalay sidoo kale kuwaas inuu ku bedesho kuwa authentic ah rasmi ah isla markaana alternative-kooda freega ah freshka ah sidoo kale inuu iska ilaaliyo forcing idioms into speech hadalka ama qoraalka inuu ku qasbo idiomska sidoo kale inuu maaragtay markuu qofku communication sameynayo inuu clearly and natural si waadixa isla markaasna asala inuu hadlo ayaa laga doonayaa marka maxaa la yidhaahdaa colleges horta si kooban collegesku waa phrasal verbs ama sidoo kale waxay isku bah yihiin adugu waa idiomatic expressionska laakiin waa kuwa aad loo isticmaalo oo macnaha saa'id loo isticmaalo marka inta ugu badan waa wax common ah waa ereyada hadda af soomaaliga oo kale haddaan tusaale kaaga soo qaado waxaa jira oraahyo aynu aad u isticmaalno macnaha oraahdaas way yar tahay inaad aragto qof aan maqlin waxa weeye marka oraahyadaasi hadda luqadda ingiriishka marka la joogo haddii marka qofku hadduu kusoo celceliyo oraahda kusoo celceliyo macnaheedu waxa weeye qofkaas waxaa laga dareemayaa original wixiisu inaanay ahayn wax soo xifdiyey ay tahay oo maaragtay wax lasoo xifdisiiyey sababta koobnaan bay muujinaysaa waxay kaloo muujinaysaa qofkani inuu hal xikmad yaqaano hadda halkaas inaga booska inta badan waxaa ku jira xikmadaha ama hadallada maaragtay duurxulka ah oo kale laakiin markaa hal xabba ku celcelisid waxay ka dhigan tahay macnaha inaad ay jirto wax la yidhaahdo aad overusage samaynayso overused expressions sound original waxay u muuqdaan kuwa aan asal ahayn tusaalahaanta waxaa ka mid a tan at the end of the day at the end of the day aad baa loo isticmaalaa laakiin dadka luqadda bartay oo asalka ah waxay inta badan leeyihiin ma aha in aad loo isticmaalo yaa waa in waxay leeyihiin mar iyo laba waa isticmaali kartaa laakiin in lagu celceliyo waxay muujinaysaa waxaan loo yaqaano collegeska waa overused expressions bay noqonayaan why avoid collegeska maxay tahay inaad isaga ilaalisid waxay maaragtay clarity ayay yareynayaan macnaha waxa weeye halkan waxaa loola jeedaa tusaalahaan qofkaan fahmayn inaad ku celcelisid macnaha qofkaas waxaa ka lumaya wax la yidhahdaa clarity-ga mid ka mid a ujeedooyinka ugu waaweyn oo luqadda aad u baranaysid waxa weeyaan in lagu fahmo ama waxaad sheegaysid inuu noqdo wax waadixa dadka xataa bartay oo adiga sidaadoo kale inay ku fahmi karaan marka inaadan overusage samayno wixii aadan boqolkiiba ilaa maanta aadan ku celcelin oo hal mar laga yaabo inaad isticmaasho laakiin aadan ku celcelin they make speech sound lazy waxay muujinaysaa lazinimo hadalka ama qoraalka waxay ka dhigaysaa mid lazy ah sababtuna waxa weeyaan qofka tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inuu ka lumo maxaa la yidhaahdaa passage flowgii inuu ka lumo sheeku akrinayay sheekadii waxa ku jira kelmaddaas fahmi waaye kelmaddii uu raadiyey marka maxaa laga wadaa kelmaddii markuu raadiyo dabcan waxa ka lumay passage flowgii hadhowda laga yaabo inuu iskaba caajiso sheekadiiba sidaas uu ku dhaafo ama wixii aad rabtay inaad sheegtid in dadku maaragtay ay kaa caajisaan markaa kelmadaha noocaas ilaa maanta at the end of the day practice makes perfect aad ilaa ku celcelisid saa idigu celcelisid
waxa weeye waxay muujinaysaa markaas inaad sameynayso of a using expressions. Examiners, teachers, and listeners prefer originality. Inta badan dadka imtixaanada qaada, macallimiinta, dadka dhegeystayaasha ah oo presentation hadaad jeedinayso ama audience-ga dadka loo yaqaan meel public hadaad joogtid ku dhegeysanaya, dadkaas oo dhan waxay jecel yihiin wax original inay dhegeystaan, ma jecla waxa la yidhaahdo wax ilaamaanta lagu celcelinayo ama wax aan dabcan maxaa la yidhaahdaa ereyo la isu keenkeenay oo kale. waxay jecel yihiin originality-ga sababtoo ayagu waxay rabaan waxa aad leedahay hadduu macallin yahay tusaale ahaan oo kale wuxuu rabaa inuu jaaji gareeyo inuu kugu xukumo waxa afkaaga ka soo baxaya ama waxa qoraalkaaga ku jira inuu kugu xukumo buu rabaa ma doonayo wax maaragtay isaga uga baahan shaqo dheeriya inuu maaragtay maxaa la yidhaahdaa uu kugu jaaji gareeyo. Okay, common glitcheska maxaa ka mid ah practice makes perfect baa ka mid ah time will tell baa ka mid ah practice makes perfect it's good waxa weeye waa wisdom waa la isticmaali karaa runtii waxayna muujinaysaa qofku inuu wax practice garayo inay keenayso qofku inuu wixii aada ugu fiicnaado laakiin originality kama muuqdo waxa weeye marka saas awgeed waa isticmaali kartaa laakiin haddii lagu celceliyo glitches waxaa loogu bixiyey ereygan sheekadiisa u tegi doonaa inaan horeyba idinku sheego waa qurux badnayd ereygan waxuu ka yimi luqadda frenchiga ayuu asal ahaan ka yimi ereyga glitches luqadda frenchiga ayuu asal ahaan ka yimi waa kan wuxuu ka yimi waxaa la yidhi when hot metal hit the mold it makes clicking sound marka birta kulul ay ku dhacdo mold waxay keenaysaa baa la yidhi dhawaaq marka jiiq 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 halkaasuu ka yimi macnaha waa wixii oo saa'id loogu celceliyey ya waa wax ilaa maanta waa wax dhegtu ay dhibsanayso ya marka glitch marka halkaasu aslaan glitch iyagu marka waxay ula jeedaan ilaa maanta inaad dhahdid oo practice makes perfect aad 10 jeer sheekadaada dhexdeeda ay ku jirto waxay leeyihiin kama duwana jiiqjiiqdaas oo kale kama duwana saas oo kale bay leeyihiin marka waa isticmaali kartaa yes waa wisdom laakiin ma aha inaad ka badisid time will tell waxa weeyaan waqtiga ayaa sheegi doona time runtii haddaana u fiirsatid erayadaani inta badan kuma dhisna xaqiiqo oo kale ama kuma dhisna wax la yidhaahdo fact tusaale hadda perfection way adag tahay sida loo gaaro perfection boqolkiiba boqol ah inta badan dee inagu iska bini'aadan baa nahay wax boqolkiiba boqol perfect ah ama ideal ah ma jiro oo 100% efficient ah marka at the time will tell oo kale waqtiga ayaa sheegi doona waad dareemi kartaa waa erey maaragtay maxaa la yidhaahdaa aan waqtiga ayaa sheegi doona macnaha waxay ka dhigantay natiijada lama hubo oo kale ya in today's world marka common glitcheska waa badan yihiin qaybtan ayaa waxaad ka helaysaa glitcheskii oo by topic ah tusaale ahaan kuwa glitches about the change kuwa ku saabsan maxaa la yidhaahdaa change Leopold can't change its spots maxaa la yidhaahdaa shabeelku ma bedeli karo maxaa la yidhaahdaa sportskiisa ama dhibcaha Leopoldka halkan wuxuu ugu jiraa Leopard sorry waa meelaha inta badan lagu tartamo dadku kasoo muuqdaan marka dhibcihiisa ma bedeli karo ya tan maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dadku waxa weeye people rarely change their true nature dadku in yar bay wax ka bedeli karaan sidii ilaahay abuuray ama naturekooda asalka ahaa inay in yar bay wax ka bedeli karaan sida caadigaana soomaalidu waa kuwa yidhaahda laf jabtay sideeda waxa weeye marka siduu ilaahay ku abuuray haddii ay wax ka sii noqdaanin way adag tahay in la bedelo ya
all good things must come to an end wax kasta waxay leeyihiin dhammaad oo kale weeye bay tan ka dhigan tahay change is in the air isbeddel baa hawada ku jira macnaheedu waxa weeye transformation is about to happen waxa dhacaya isbeddel change is is the only consonant life is always moving forward marka waxa weeye horta waa baran kartaa runtii wayna ku anfacayaan inaad baratid sababtoo ah waxaad noqonaysaa qof ku wacyi gashan laakiin inaad iska ilaalisid one time two time waa isticmaali kartaa laakiin inaad aad ugu soo celceliso runtii waxay muujinaysaa over usage ama inaad maaragtay wixii kale aa oran lahayd inuu macnihii inuu maaragtay kaa lumiyo meel kastana aanay ku habboonayn marka glitchku waa noocaas waa wax in la rabo one time ama two time meesha ay ku habboon tahay oo kale oo isticmaali kartaa kuwani marka waa kuwa changega ku saabsan kuwani waa kuwa deathka ku saabsan dhimashada kuwani waa kuwa ku saabsan dreamska qoyska cuntada iyo maxaa la yidhaha cunitaanka saaxiibada caafimaadka hope and optimism creates about life creates about love and marriage lack and faith creates about money marka runtii wuxuu kugu kala qaadayaa qayb qayb guud ahaan hadda creditska halkan ku jirana waa 223 marka waxa weeyaan dabcan waa kasoo sheekanay strategiska isticmaali kartid sida creditska ama wax la mid ah oo kale aad u baran kartid waad nabadgelaysan kartaa macnahooduna waa intaa ku qoran runtii wax badan ugama baahnid inta halkaa ku qoran oo kale haddaad iska nabadgelaysatid mid kasta macnihiisa just aad fahamto berika maalin haddaa aragtid marka si aad u fahamto ereyga macnaha noocaasa leh si kooban haddii loo sheegona luqadda caadiga informalka ah waa xikmado oo waa la isticmaali karaa tusaale ahaan dadka aad informalka u sheekaysataan waa u isticmaali kartaa laakiin dadka maaragtay formally oo ama academic context ama markaad shaqo oo kale interview gelaysid inta badan laguma taliyo inaad isticmaashid sidoo kale qodob kaloo iska ilaalinaysa waxay yahay xataa informalka markaa u isticmaalaysid inaad iska ilaalisid waxa la yidhaahdo over usageka inaad iska ilaalisid okay hadda waxa weeye my hometown is a piece of cake hadda contextiga piece of cake yes waxa weeye waa idiomatic expression laakiin my hometown kuma saxna waa forced waa ku khasabtay halkaa booska macnaa ma lahay waa ku khasabta maxaa weeye my hometown is peaceful and friendly marka magaaladaydu waa mid nabdoon isla markaasna ku habboon friendly ah oo dadkeedu macnaha dadku soo dhaweynaya yihiin nolosheedu nala dabacsan tahay wax maaragtay yaana ka jirin complexity okay natural integration good idioms blendism tusaale preparing for the exam helped me improve both speaking and writing it was like killing two birds with one stone kan wuxuu yidhi imtixaanka inaan diyaariyo ayaa iga caawiyey inaan improvement ku sameeyo aan habeeyo hadalkayga iyo qoraalkayga macnaha labadaas skill baa iga caawiyey taas macnaheedu maxaa weeye wuxuu yidhi waxay la mid ahayd sidii inaan 2 shimbirood hal dhagax ku dilay marka tan waa idiomatic expression marka waxa weeyaan hadda halkan waxaa yidhi good idioms blend smoothly waxa weeye si natural ah ayay isu maxaa la yidhaahdaa maajkareyn si smooth ah macnaha aanu dhib ku jirin oo kale ayaa loo isticmaali karaa sida tusaale ahaan
soo qaadanay alternative-ka marka waxaa jira sometimes collegeska alternatives baa jira aad ku bedelan karto tusaale hadda halkan instead of college life's hard waa college waxaa habboon inaad isticmaasho the life in many places is challenge but people are resilient noloshu meelo badan waxa weeye waa challenging waa mid maaragtay maxaa la yidhaahdaa dadku ay la kulmayaan waxyaaba difficulties ama hawlo badan ay kala kulmayaan waxyaaba badan oo maaragtay sida positive-ka ah aan dhicin laakiin dadku waa adkaysire dadku macnaa way u adkaysanayaan waxa weeye sida caadigaana de nolosha rogacaas ma dhigto waxa weeye waa challenge macnaa waa wax waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo tacab marka saas baa loola jeedaa macnahaas bay samaynaysaa okay contextiga marka isaguna waa muhiim young people are the backbone of the community dadka yaryari waa lafdhabarta bulshada backbone waa lafdhabarta backbone marka halkan waxay ugu jirtaa waa idiomatic expression collegekan ayaa maaragtay hadda bartaas collegekan oo kale haddii la geliyo waxay noqonaysaa inuusan macnaha hadda u sameynayo aanu sameyn hadda youth are the future iyo dhigmataa collegekaas waxa weeye young people are the haddaan dhahno hadda tusaale ahaan oo kale youth are the future of the community waxa ka habboon maxaa la yidhaahdaa inaan qaabkaas isticmaalno okay strategies to avoid colleges yaabaha isaga ilaalin kartid marka colleges paraphrase with your own words ereyada markaas waxaad samaysaa paraphrase waxaa ku samaysaa own wordskaaga ayaad isticmaali karta haddaad rabtid inaad tusaalehaan erey u dhahdid new way ama macnaheedu lahaa adoo aan bedelayn aad rabtid ereyada inaad bedelato paraphrasing baa samayn kartaa paraphrasingna waan kasoo hadalnay casharadeenii hore qaabka loo sameeyo strategiska isticmaalintaba be descriptive and specific waxaa noqotaa qof si cad wax u sheega oo descriptive qeexan isla markaasna cad oo specific waa aadan maaragtay meelo badan madaxa la gelin simple and clear expression baa isticmaali kartaa markaa rabtid inaad colleges iska ilaalisid things to avoid too many idioms unnatural too many idioms haddaa isticmaashid waxa weeye waxaad noqonaysaa qof aan maaragtay si original oo hadleen examiners prefer simple but correct language waxay jecel yihiin dadka examinaska tusaalahaan qiimeynaya imtixaanada sida IELTS oo kale simple maaragtay wax fudud laakiin saxan marka ugu dambeyntii collegesku waxay wiiqi karaan message-kaaga waa haddii aad u isticmaashid idioms iyo waxaad isticmaali kartaa idiomska iyo phrasal verbska isbaarin geli ayaad u isticmaali kartaa marka runtii si tartiib ah ayaad u isticmaali kartaa sidoo kale clear and natural English always makes the best impression si cad isla markaasna dabiici ah ayaa Englishku inta badan ayuu ku sameeyaa macne ama expression okay marka ugu dambeyntii linkigan waxaad ka helaysaa qaybta waxaan dhigi doonaa public sourceska popular sourceska sidoo kale waxa weeye waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad qaybta tagtid quiz-ka iyo qaybta further resourceska qaybta further resourceska xog dheereeyaad ka helaysaa halkan ayaad ka heli doontaa linkiyadan hadda linkigan oo kale sidoo kale waxaan maadaama aan module-kan dhammaynay markaad soo daawatid resource-ka tagtid quiz-ka shaqaysid markaad rabtid inaad module waxay u gudbaysid waxaan kula talinaynaa foomka buuxisid sida caadiga koorsada ka mid ah structure-keeda module-ka dhamaysay aad title-kiisa halkan ku qortid commentiga halkan noogu reebtid haddaa wax su-aalo qabtid haddii wax khaldan ay jiraan casharada dhexdooda aad ku aragtay ama any feedback aad nala wadaagaysid
kadibna wuxuu ku keeni doonaa next module markaad halkan taabatid. marka casharkeena maanta intaas ku eegyahay moduleka lixaad waxaan kusoo dhaweynayaa insha allah moduleka lixaad. asalaamu calaykum. toddobaad baan leeyahay. asalaamu calaykum.